dhammaantiin aad bay idin wada salaam meel kasta dunida joogtaanba waa Ibros Travel weeyaan waa inta badan jecel waxyaalaha dalxiiska iyo sida online marketing ama lacag looga sameeyo in la wadaaga fursado badanna jecel inaan idin tuso qof kasta maanta noloshiisa wuxuu jecel yahay noloshiisa isbedel sameeyo heerna gaarsiin noloshiisa laakiin dadku badankoodu waxay isweydiiyaan xageed ka bilaabi kartaa xagad noloshaada ka bilaabi kartaa adigu aad horumar ku gaari kartaa because haddaad qof u shaqaysid mar walba waxaad tahay qof aan xadidan ama limitkiisu meel joogo laakiin markaad tahay qof adigu qof fikrad furan maanta idea raadinaya waxyaala raba inuu sameeyo waxaad samayn kartaa isbedel badan baad noloshaad samayn kartaa because Soomaalida wax ku maamaada Roma was not a built a day Roma maalin laguma dhisin taasina been maaha waxaa keenaa laakiin caqabadaha inaga hor yimaada waa maxay aad inta badan dadka hor yimaado qofku dadkeena bulshada inta badan waxaan ku fikiraa sanad bil dadka qaar baa jecel inay bil ku taajiraan qaar baa jecel inay diiro kooban noloshooda isbedel ku sameeyaan wax kasta oo nolosha loo samraana wuxuu qaataa waqti buu qaataa maanta fursad baan kula wadaagayaa fursadaasi inta badan dadku waxay yiraahdaan wax la yiraahdo traderka crypto forex trader waxyaalahaas inta badan dadku ay yiraahdaan laakiin meel ka dhow baan ku barayaa maanta because haddaad trade garanaysid cilmi dheeraad u baahan tahay aqoon dheeraad kaaga baahan tahay inaad wax badan aad ku ogaato kaaga baahan tahay waqti dheer inaad gelisay kaaga baahan tahay adigoo jaamacad ka soo baxay oo kale wadoo dhakhtarnimo soo bartay oo kale adigoo engineer soo noqday oo kale marka traderka waxa la yiraahdo isagu wax aad u fudud maaha laakiin laba siyaabood baa jirta qofka lagu trade gareyn karo aan jeclahay maanta inaan kula wadaago fududna adoo trade gareynaya zero aqoon ah lawlijaaga aqoontaada tahay aan wax fikrada ka haysan ayaan ku barayaa dad noloshaada ku sameyn kartid adduunka waxa jirta waxa la yiraahdaa shareholders shareholders inaad noqoto qof share waxan wax ku leh okay taasaan maanta jeclahay inaan kula wadaago haddaad rabtid maanta kale inaad iibsatid haddaad rabtid inaad maanta inaad waynu ognahay dadkeen inta badan waxaanu sameynaa xagbadan ama ayuutada waxaynu idhaahno waa inaga bil walba bixina lacagna meel dhigana si brito ah 10 bilood kadib sanad kadib waqtiga tahayba iyadoo lacagta ku badataad qaadanaysay laakiin the same way oo kale wax tusay maanta laakiin lacagtaada aanay fadhiin okay because haddaan maanta 5 kun dhinto 5 kun haddaan dhigto haddaan $100 dhigto tusaale oo kale $100 12 bilood haddii la sugeeyo wuxuu noqonayaa $1,200 exactly somaha laakiin markaan lacagtaadu aanay fadhiin ee ay tahay lacag soconaysa dhaqdhaqaaq samaynaysa waxaad samayn kartaa one day ama 2 cisho in xisaabtaada rabtay inaad 12 bilood aad sugaysay inay ku noqoto 2 cisho kaliya faa'iidadeeda hesho taasina waa fursad kale aan jeclahay inaan kula wadaago because dadka badankiisu waxaan la yiraahdaa anigu inta badan cryptada aan aad ugu dhex jiraa waxaan iibsadaa cryptooyinkan inta badan anigu aan iibsadaa sanad bil walba waxaan iibsadaa cryptada iibsadaa hadafkayguna wuxuu yahay maaha sanadkan maaha next year maaha ilaahay caafimaad siiyo wadku waa meeshiisa caafimaadkuna waa meeshiisa laakiin hamigayga waxa mar walba ku xisaabtamaa waqti dheer waxa la long term ay dhahdaan waqti dheer inaan ku fikiro inay noqoto ayaan ku iibsadaa so haddaan maanta kula yara wadaago tusaalan ku siinayaa waxaan rabaa inaan iibsado haddaan ku yara tusayaa haddaan kula wadaago kale bitcoin oo kale iyo waxyaalahaas iyada imika hadee meel sare maraysaa laakiin XRP oo kale haddaan tusaale kale kugu soo qaado XRP wax weeyaan waxyaalahan iyada volume-keeda ama lacagta inta badan dhex wareegta ay tahay I think inuu ka afraad yahay baan u malaynayaa soo afsharaad because bitcoin-ta ugu sareysa Ethereum-ka Solana Doge waxa saaba filaynay ugu sareeyaan inay yihiin kuwa ugu badan ee maanta haysta laakiin wax muhiimada koobaad wax weeyaan bishii maxaad ku iibsan kartaa imisa coin baad iibsan kartaa aad meel la dhigan kartaa because xasuuso 2018 ayaan anigu soo dhaxgalay cryptada 2018 baan anigu cryptano ka mid noqday dadka cryptada soo dhaxgala bitcoin-ka beriga waxay ahayd mananaya 20,000 bay ahayd baan filayaa 20,000 2 years kadib waxay gaadhay almost $70,000 bay ahayd waan xasuustaa waan iibsaday laakiin
muddo yar kadib waan iska iibiyey laakiin berigaa dee waxaan iska ahaa qofku intuu cusub iyo kale waad ku faysaa dhacaysaa so haddaan waxay kula wadaago kale imika bit imika haddaan ku tuso waxaan la yidhaahdo XRB oo kale XRB maanta waxay maraysaa 0.5 waxaanay gaadhay 0.8 bay gaadhay adigu 6 bilood ka hor maantana hoos buu soo yara dhacday laakiin waxa weeyaan waa muxuu ahaayey kriptooyinka yani mustaqbalka laga rajaynaya inay noqoto a lot of fun because volume-keeda haddaan ka yara tuso ama wax lacagta ku jirta oo nafta waxaan filayaa si coin market haddaan tagno kale coin market haddaan tagno kale the biggest waxay noqonaysaa waa Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XP waxay ku jirtaa number 6 bay ku jirtaa okay numberka 6 bay ku jirtaa ku jira baalkeeda weyn Soomaartid waa yani waxa laga yaabaa inay gubaan baalkan oo kale inta soo trillion weeyaan 1.6 way masaxaween 3.8 trillion weeyaan ka inay gubeen 58 volume kida weeyaan laakiin waa 4 trillion ba ku jira weeyaan marka inay gubeen waa dhici kartaa oo ay meesha soo koobaan hadhowtay soo qoobaan way dhici kartaa marka tan aad iibsatay Solana oo kale iyadu waxay ahayd imka $102 bay ahayd bishii muxuu ahaa atix waxay ahayd bishii sagaalaad $102 bay ahayd halkan aan ka eegaynaa bal inta aad ku bir haddii maanta iibsan la waan iibsaday anigu runta ilaahay fiican laakiin waan iibiyey okay inkasta lacagta u baahnaa marka waqtiga xaadirka waan iska iibiyey so waxaan eegaynaa inta inoo kacday in halkan kala yara soconaynaa so muhiimadeedu koobaad aan uga dan lahayn waxa weeyaan waxaan eeganaynaa waxaan tegaynaa 1 year intuu ahaa okay so hal sano intee dhaqaaq samaysay baan tegaynaa halka aan ku arkaynaa maxaan ku arkaynaa halka aad ku arkaysaa bishii 6aad 24keedii oh yeah bishii afraad bishii 6aad 13keedii mise inaga soo wareegay almost 6 bilood ka hor Soomaa imka sanadka January ban iskaga jira 6 bilood ka hor waxay ahayd $15 imagine ya bishii 6aad ee sanadkii aan soo dhaafnay ee 2023ka $15 bay ahayd ma waxaanay gaadhay sanadkan 12kii muxuu ahaa bishii 12aad 25keed waxay gaadhay 100 waba ka sareysa baan filayaa inay meelahan gaadhay waan malaynayaa $124 bay gaadhay $124 ha $124 ay gaadhay so taasta waxay ku tusaysaa inta xawaare samaysay dan dib ugu yara noqdo kale iyada okay marka muhiimadeedu koobaad aan uga dan leeyahay waxa weeyaan inaad baratid oo kale imka xaq waxaan ku soo dhigayaa xaq waxaan ku soo subscription waxaan ku soo dhigayaa linkigan ku soo dhigayaa xaga intaad gasho dejiso iska diiwaan geli kaliya waxaad samayn kartaa inaad tiraahdo just buy waxaan u baahanahay inaan iibsado crypto inaan iibsado u baahanahay kaliya so intaad iibsato marka wayna markaas anu ma yihi mar walba qof kula talinayo waxaan sameey I'm not because financial qofka yani tala ka bixiya mahi wax leeyahay financial ka tala ka bixiya laakiin kaliya waxaan ku leeyahay Solana kaliya tusaale ku soo qaaday 2023kii 6 bilood ka hor waxay ahayd $15 6 bilood kadibna waxay gaadhay $124 $125 meelahaas ayay gaadhay so moment marka how much imka haddaan haysan lahaa imka kale ayos almost waxaan haystay wax badan haystay laakiin waan iska iibiyey runta fiican laakiin haddaan moodaysaan maanta maan iibiyeen dhima lahaa laakiin waxaa jirto kale way badan yihiin mar walba inaad ka faa'iideysan kartid yani waxyaalahan oo dhan aad odhan kartid oo waxaan iibsanayaa kuwa 0.0 kale because marmarka qaarkood oo kale haddaan halkan tagno kale waxaad tegi kartaa kuwa maanta ugu sarreeya 24 saacadood dambe ugu sarreeya kale wuxuu noqonayaa so that's it traderka iyo cryptodan iibsataa ciyaar maaha wallahi ciyaar maaha wax aad u qiimo badan wax mustaqbalku anfacayo weeyaan
wax waayahaaga dambe ku anfacaya weeyaan soo ka faa'iideysan ku leeyahay anigu mar walba waxaan jeclahay qofku inuu ka faa'iideysto oo uu ka samaysto muxuu ahaa uu sameeyo kan oo kale wax weeyaan waa 0.00 I think it's a new one and waa okay waa cusub yahay naftiisa is new kan waa cusub intan waa cusub yihiin so fursadahaas oo dhan oo waxyaalaha imika kan oo kale 15 buu hoos u dhacay 22% buu kan kacay oo wax badan oo yaani aad ku jirjiri karto oo kale aad fahantido kale inaad dhex gashin marka horeysa YouTube bada kale ka daawo kartaa waxaan ku soo dhigi karaa xagga hoose YouTube ka waxyaalaha badan oo aad ka baran karto laakiin inta badan waa Ingiriisi bay ku hadlaan waxyaalahaas oo dhan so buy iibso waqtiga ka faa'iideyso anigu insha Allah wixii daawadeeda waan tusi doonaa sida loo iibsaday waxaan oo dhan hadii first imka kan waa dhiirigelin kaliya ku sameynaya iyo say isu bedbedel sameynayso change isu sameynayso so aad baan idin wada salaamay dhamaantiinba kana faa'iideysta waa mar walba wax weeyaan inaan la wadaago sida online uga shaqaysan kartid iyo waliya traveliska hoteelada diyaaradaha everything yeah sit waxa soo dhanba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته